cabdi dhaanto sida isku cadeyn jiro oo isku cadeeya meeshii uu ku joogaa Mareykanka just Africa la isbedesho oo Mareykan noqotay wuxuu xaq ku hay fataalnimadii loo soo guuray xaq oo la imaaday Miss Wall magaalada iskaga shidneed life-keedii waxeedii Soomaali ku haysay ee la imaatay maanta bal Miss Wall hal uu karo cid gabar oo shaqeysato ilmaheeda iyo hay lacag kugu siinaa saddex qodob ayaa rabaa meeshan inaan ku qaada dhigo ama aan idinku falanqeeyo midka koowaad waxa uu yahay Mareykanka oo shaqaale la'aan baahsan soo wajahday waxa uu sheegay inuu u baahan yahay milyan maahan 10 milyan maahan war Africa oo dhan dadka joogo xataa haddii uu heli karo inuu soo qaato si ay ugu shaqeeyaan kambaniyadiisa midka labaad waxa uu yahay dadkii darbiga ka booday xaaladooda iteemarusa ama maxay tahay xaaladda ay ku sugan yihiin midka saddexaad oo ugu dambeysana waxaan ka warami doonaa dadka Faransiiska ku nool isla markaasina taagan sharciyada naga laaban rabaa maswaana laga laabtay waana la celin rabaa saddexdaas qodob ayaa rabaa in aan mataqaana falanqeeyo midda koowaad waxay tahay dowladda Mareykanka oo shaqaale la'aan badan ay soo wajahday waxa isweydiinaysaa intaasoo kun oo qofood ay qaataa sanadkii hadda la soo dhaafay iyo kii ka horeeyay dad fara badan ayaa ku jabay si oo darbiyada ka booday waxa kamid ah Farax iyo Xaliima aad garanaysid okay saas ay tahay dadkii darbiyada ka booday ma rabaan inay shaqeystaan marka qodobkan koowaad iyo qodobka labaad oo ahaa dadkii darbiga ka booday ama ka waxa rabaa in aan connection u sameeyo oo isqabadsiyo muuqaalkan haduu ku soo gaaro share gareey ama hoos ugu wac mid walba uma taqaana aad taqaanid oo darbiga ka booday Mareykanka joogo horta si wada ogsoonahay qof walbo dabeecadiisa lagama bedeli karo Soomaali waxay dhahaan waano abuurisa ka horeysa horta qofka in waanis oo war ka qaato waana waxa ka horeysa abuuris oo Ilaahay uu abuuraa jirto macna okay dad fara badan oo Europe joogay iyo Africa joogay oo aad wada taqaanaan oo maanta ay idin dhihi karo kow iyo labo waba idin dhahay aad darbiga ka booday dad fara badan oo Europe joogay oo galay waa jiraan oo maanta Ilaahow warqada shaqada la yaana sii tagnaa dad Africa ka soo tahriibay oo dhalinyarada kamid ah darbiga ka booday oo waxa jira ay kan taagnaa Ilaahow yaana siiyo warqada aan shaqada aan ku galeeno haddana way shaqeynooyin okay nin la dhaho Ayub Carlo Europe ma ko joogo waa taqaanin life-kiisa iyo meelahan uu kana nacleen jiray haddana Mareykanka oo tagay dadkii ficiisa ahaa waak barmid ay qaateen waa shaqeynooyin macnaha waxa ku sheegaya waana abuurisa korismi ku dhahayo qof walba meesha uu joogay sidoo ku ahaa le Mareykanka markii la geeyna oo ku ahaana line of opportunity waxay u tahay qof allaala qofkii dadaali jiray macnaha shaqo in la siiyo qofkii raadin jiray ee u tahay aan ku soo xijiyo nin la dhaho CK YouTuber oo ahaa Europe ko joogay hadda noloshiisa maxaa iska bedelay waa isla YouTuber dad fara badan oo waxa jira oo ma ko soo galay la soo galay oo waak barmid inay qaateen oo shaqeynoo taraaglayaal shaqa oo u saaran maqaayada ka shaqeynoo dhul taraaglayaal sababtoo dadkaas lacag ay rabeen okay noloshiisii Europe waxay ahayd CK YouTuber dad fara badan xasoo dhidonaan waa ka xantahay noloshiisa ka xantahay bawa shubada ku dhasho was hoose ka soo caytami doonaan yalkadeed runta in la sheego waxa waaye muhiim waaye noloshiisa Europe waxay ahayd YouTuber oo ahaa hadda noloshiisa maxaa iska bedelay Mareykan oo jooga macnaha position kale isbedelay qaaradii isbedeshay wadankii isbedelay Mareykan YouTuberkiisa leeyahay waxa laga yaabaa meesha uu ku soo duubi jiray inay ka qurux badneed oo macnaha uu ku qanacsanaa marka CKyo walaalkayo hadiiba YouTuber le aan noqon doontid marka tagto Mareykanka Europe waxa iska joogaas xagana YouTube le ku noqon lahayd Sharma Boy Africa joogay fanaan oo ahaa haddana fanaan leeyahay
noloshiisa maxaa iska bedelay sharan boy xafiis fadhiya ma aragteen asigoo lacag oo sameynaa ma aragteen waa maya qof walbo sidiisii loo ku imaaday cadnaan moodal waxaa arki jirteen asigoo uu iska warwareegayo Kenya iyo meelaha afka leerinayo hadda meeshiisoo joogaa isla same shit sidii le waa meesha wax iskama bedel noloshiisa ma aragteen asoo maqaayad ka shaqeynayo oo dhahaa inuu shaqo u soo baxay kaamirada haleega qari ma aragteen waa maya cabdi dhaanto sidoo isku cadeyn jiro oo isku cadeeyaa meeshii uu joogaa Mareykanka just Africa la isbedesho oo Mareykan noqotay wuxuu xaq ku hay fataalnimadii loo soo guuray xaq oo la imaaday Miss Wall magaalada iskaga shidneed live-keeda iyo waxeedii Soomaali ku haysay ee la imaatay maanta bal Miss Wall ha lagu karo cid gabar oo shaqeysato ilmaheeda iyo hay lacag kugu siinaa malaga karaayo waxay ku leedahay anigoo Miss Wall ah sidee naag ilmaheeda u haynaya laakiin gabar kale oo Afrika imaatay qaxootiga joog jirtay ama Uganda ka imaatay ama Mexico ka imaatay ciyaalkan iyo haynta sharciga sugaysa ana lacag ku siinaya kugu biilay caadi waa la leefaa baraada dadka kala tagay waaba kala tagay intaas waxa waa inta aad garanaysaan oo hebel la dhihi karo markii anigana ida ii garaabin oo aykan u garaabin oo dhaxad anaga noqotiin kale waa dareemi kartiin waxa ka wadaa qofka muhiim ma ahan in uu Mareykan tago iyo inuu Canada tago iyo inuu Yurub imaado waxa muhiim ah qofkan qof shaqo ma yahay ilaahay muu abuuray inuu qof shaqo yahay laakiin qof balwad lahaa shiishad lahaa lazy ahaa waxaana baranin meelaha madaxweynaha iska faataaleen jiray meeshii siisoo ku ahaana yaana ka tagin nin la dhaho Xasan Toob Soomaalina wuxuu aan jiray meeshaan ay ka shidan tahay gabadhan dabadeeda waa shidan tahay gabar kale kacsan waay socodkeeda fiiri English uu bedelay Mareykan uu tagay wax isbedelay nolosha ma jirto dadkaas u jeedin dad badan oo Yurub joogay oo baasabooro watay oo raaxaysan jiray oo meesha rabaan aadi jireen maanta ma raaxaysan karaan oo maanta xataa Ilaahay kuma keenay hadii waalidkooda mid kamid oo xanuunsado ama uu geeriyoodo geeri ku imaado ma aadi karo sababtoo ah baasaboor wuxuu sugayaa 5 sano ama ka badan wuxuu sugayaa in uu helo baasaboor ama sharci deganaansho helo dadkaas ay idin sheegayo qofkii shaqo ka go'need dad badan oo waxa jira taariibay oo Mareykanka tagay ma aragtaan dadkaas waa maya dadkaas shaqo ku kala jiraan maqaayad shaqo qarsoodi ah shaqo uma taqaana oo maxaa black oo iska shaqeystaan laakiin dadkii oo ka soo taga xagga iyo dad kale oo la garanaynin oo ayagana oo leesyala waa jiraan qof walba oo la garanaynin ma inuu taf yahay oo shaqeysanayo leesyala waa jiraan Faransiiska ku soo haray Faransiiska waa wadanka kali ah ee Yurub ku yaalo oo maanta 5 baasaboor ama 5 sharci ka badan ka qaadi kartid waa adigoo hal qof ah gobolkan aska dhiibay faradigane sharci ka qaadane waa tagay gobolka tagay sharci ka qaadane waa ka tagay gobolka tagay sharci ka qaadane waa ka tagay waxa wacay qaraabadaada oo dhan waxa leedahay sharciga idin haya kaale imaada hada sharci la'aan aad tihiin waxa keenaysa Faransiiska oo joogan Yurub oo sharci la'aan ku ah ka hadlaa waxa leedahay magaalo hebel magac hebel iskaga dhiibay tag sharciga mutaqaan oo soo dhici rabay faraha soo dhigo wadan saas oo asiga iska warhaynin waxa lagu leeyahay sharciga laga qaatay ama sharciga mutaqaan laga naqsaday waxa ay dacweeyay qabiila ay dacweeyay ama qof hebel ay dacweeyay wax adiga aad sameeynin lagaaga ma qaadanayo sharciga adiga dhaka weyne adiga waxa aad sameeynin lagaaga ma qaadanayo laakiin anaka waxba hadii aad rabtid in lacag lagu aruuriyo hadaartid in mataqaana oo lagu cimaamado sheego hale cimaamado war cad waaye war rageed waaye laakiin qof haduu ku soo dacweeyo oo rabo inuu mataqaana sharciga ka qaato ama sharciga laga naqsado waa in process dheer u soo maraa adigana waxa waaye waxa leedahay asin raayda uu leeyahay waa in maxkamad oo la maraa waa in mataqaana lawyer aqasta asan lawyer oo qabsada maxkamad dhaxad idan noqota qofkii guuleysta areer ku haraayo laakiin wadan asiga caasimadiisi teendooyin ay ka dhisteen qaxooti oo booliska maalin walba u dhaha waa idin baryaay meelaha degtina idin siina soo baxa oo awood u leh inuu wada qabto oo wada tarxiilo
oo dadkaas oo Paris baalaha Paris iyo taalada Paris hoosteeda jijiifa iyo magaalada dhan oo jijiifaan qaxootigii la qaadi waayay macnaa adiga kaliya maxaa sharci lagaga naqsado oo lagu celinaa adiga dulmigaas aasamaysa sheeg hadda criminal tahay hadda macnaha isha waxyaabo kale aasameysay sheeg laakiin qof Faransiiska iska qabsanayo sharci iska qaadanayo la iska celinaa ma jirto waa in adiga iyo booliska macnaha connection ay lahaataan oo isku aragtaan waa in horta iska soo baxdaan markaas kadib in laga qaadan lagu sheegaa wanama iyo muuqaalkan dad ku soo gaargo share gareey sidoo far badan ee muuqaalkan ay wax uga fahmaan ama dhagtooda ay ugu dhicato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.